xooga ugu badan xukuumadda Soomaaliya ayaa ku bixinaysa kulankan oo ujeedkiisu yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada kala joogta deegaanada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gobolka Banaadir. Qorshuhu waxa uu yahay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay soo codsadaan lacag lagu hormarinayo gobolada iyadoo ay caddahay shaqada lagu qabanayo lacagtaasi. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo codka xukuumadda ku hadlaya ayaa sheegay in qorshahan la rabo inuu u dhaco qaab hufnaan leh. support marka wax weeye lacag loogu talagalay shaqo abuur iyo haba iska yaraatay in dalka dhismihiisa la bilaabo dib u dhiska dalka ayay bilow ka tahay lacagta haba iska yaraatay jidka la hayaa waxa jidkii dib u dhiska weeye haddii ay rijalada qaasoo codsadaan ayaa lagu samayn waxaanay shaqadani ku wanaagsan tahay lacagtani iyo programka loogu talagalay qofkii degdeg wixiisa loo isticmaala ama wasaaraddii ama dowladdii ama gobolkii hore loo isticmaala inuu hore mid labaad kasoo dabar karo oo dabeetana the first come first serve la yidhaahdo ayaa tani kusii wanaagsan tahay. waxa markaa laydinka baahan yahay dhowr arrimood laynooga wada baahan yahay waxyaalaha Soomaaliya lagu dhaliilo oo ah wasiir Beyle ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay dhaqaalaha u kordhin doonto maamulkiisu hufan ugu shaqeeya dhaqaalaha lagu hormarinayo deegaanadooda sidoo kalena shaqo abuurka loogu talagalay iyo in warqad la soo qoro lacagtaasaan rabnaa ma lacag baan rabnaa waxaan hoosta ka xariiqaya inay u baahan tahay lacagtani inaad dalab soo dalbataan ciddii wax doonaysa la soo dalbato warqad faahfaahsan soo dalbato waxa lacagta lagu qabanayo soo dalbato cidda qabanaysa halka lagu qabanayo goorta la qabanayo muddo inta qaadanayso waxaasoo dhan si fiican looga fikiro dabeetana budgetka la geliyo oo hadhow la isla xisaabtan karo aad iyo aad bay arrintaasi important tahay waxay soo celinaysaa kalsoonidii laynagu qabinayo soo celinaysaa kalsoonidii rijalada lagu qabinayo soo celinaysaa kalsoonidii Soomaalida soo celinaysaa waxaan maanta ka shaqeynaa waa kalsooni weyn kalsooni ay naga luntay oo la leeyahay wax xabaal wax ku dhacaan Soomaaliya wax kama soo noqdaan ayaa doonaysa soo celin. xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay inay qaadayso tallaabo kasta oo shaqo abuur lagu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga oo jooga deegaanadooda si looga baaqsado inay qayb ka noqdaan falalka ammaan darro tahriibta iyo wixii la mid ah. Calaadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.